excuse me, please click subscribe and click bell. isbitaalka digirji hotel umuri hotel وروحنا الفوز والله hotel كمان نقطي على مول الفوز Daniel Castelao, agora Castelao, Daniel, tu vai ele te pensa, eu ia. يا بنتو كده ما تخليها لو هو قاعد يلقيني yada gabadha birta ah ee maamulka isbitaalka inoo hogaamisa fartuun shariif maxamed ayaa guddoonsiinaya wasiirada ayaa inoo guddoonsiinaysa qoftiyo hambalyeenu leenahay shaqada aad noo qabatay waa guul aan wada hadsanayno oo kugu faanayna guulayso waxaa markaan lala guddoonsiinayaa agaasimaha waaxda gargaarka degdega ah wasaaradda caafimaadka Mr. Ahmed Macallin Maxamed maqshib iyo maqdiga waxaa looga yaqaanaa magac laga biskiima dishibili al-ashara waa la helay waana mudan yahay waa ruucada caafimaad wuxuuna ka mid yahay astaamaha ay wasiirada ayaa loo guddoonsiinaysa hambalyo dishibili guushaadu waa guushayna isku dhaweynaya agaasimaha waaxda maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka mudane maxamuud buule maxamed soo waa hiilka waa garabka isbitaalka mar walba baahiyihiisa dadaal u gala buule waa ku hambalyeynayna garab joogaagu waa noo fara hambalyaynu ku leenahay wasiirada ayaa inoo siinaysa buule hadiyadiisa qaaliga hambalyayna leeya si fiican ha loo sawiro buule 10 line waa iga diyaar aniga taas maxay sheerna waa leeyahay line waan siinayaa weliba labada line iyo wadaloodka dhex dhigaya hambalyo guushiisu waa guushayna waa ku faanayna waxaan markana soo gaarnay marka tartan yimaado cid ayaa guulaysata dhammaanteedna waa wada guulaysanay
qofka inoogu shaqada fiicnaa sanadkan aynu macsalaameynayno bahda isbitaalka Banadir ee dhinaca maamulka ayaa la soo dhaweynayaa walaalka iyaga Maxamed Aadan Amiin magac laga miisima kalamis waaqo hasha wala waa fariid shaxlo waaye ambalyo Maxamed Bushar waa bushayna waa kugu faanayna waa kula qoos xamsanayna awoodka quruxda badan Cristiano Ronaldo taada ka fiican ambalyo waxaan adduunkan aynu joogno qof walba oo wanaag sameeya waa in la dhiirigeliyaa ruux kastoo geesiina xataa garabka lala qaban keligii guri ma yagleelo waxaa markale la bixinayaa bilada ama awoodka gabadha sanadka 2019 yaa malaynaysaa qof buu madaxa ku haya markii la tartamay waa la kala adkaaday waxaa noqotay oo la guddoonsiinayaa oo Good Leadership Award-ka oo Young Leadership Award waxaa la guddoonsiinayaa walaashayada agaasiga isbitaalka Fatuun Shariif Maxamed waxaa guddoonsiinayaa oo isbitaalka shaqaalaha uu u gartay inuu guddoonsiiyo Dr. Maxamed Cabdiraxmaan Cumar Dr. Qalbi oo agaasiga cudurrada faafa oo wakiilka una gartay shaqaalaha waa gabadhii sanadka ra'yi kastoo la qaada haddii runta laga cabaado soo lama asiibin inay Fatuun noqoto gabadha sanadka waad guulaysatay qalbi hambalyaynu leenahay hambalyo waxaynu u gudbaynaa dhinaca bixinta shahaadooyinka hay-ad weyn oo aanan jeclahay wax badanna dalkan usoo joogta WHO shahaado sharaf qurux badan ayaa loogu talagalay maamulkeeda mas-uuliyiinteeda ciddii ka joogta ayaa u qaadayda WHO ha soo dhawaato wow Maxamuud Shiraal u soo istaagay waa ruucaddaa ka mida astaamaha lagu yaqaano bahda caafimaadka eedaha caalamiga Maxamuud Shiraal hambalyo waxaan soo dhaweynayaa concern worldwide hay-adda caalamiga ciddii u joogta si ay shahaadada quruxda badan ee loogu talagalay wow gabadha hodan ayaa u qaadayda oo fariida wasiiradda ayaa hambalyo guusha concern worldwide waan hambalyaynayna hay-adda qaabilsan dhallaanka iyo carruurta UNICEF ayaa iyana la guddoonsiinaya shahaadada sanatarada Zamzam Daahir ayaana loogu dhiibay si ay u timaado ciddii loogu talagalay inay u guddoonto UNICEF wow waa la soo kacay ceelashana kalama jira oo wada joogna Banadir soo dhawow waa la guddoonsiinayaa hambalyaynu leenahay waa hay-ad ka mida hay-adaha caalamiga wax badana dadka iyo dalka ka qabta walaashayda Zamzam Daahir sanatarada ayaa guddoonsiinaysa waxaa markan la guddoonsiinayaa qof walba oo wax ku tara waa lagama maarmaan in la gaarsiiyo mahadnaqiida iyo abaalmarintiisa markan la guddoonsiinayaa xafiiska ra-iisul wasaaraha ayay isbitaal Banadir uu u gartay shahaado quruxda waxaa la guddoonsiinayaa oo u guddoomaya agaasimaha arrimaha bulshada xafiiska ra-iisul wasaaraha ama madaxa sirqaan Maryam Isxilqaan wasiirada ayaa guddoonsiinaysa hambalyo wow waxaa markaana la guddoonsiinayaa wasaarad aan jeclahay laakiin haleeni la ahay wasaaradda maaliyadda khayraadkii dalka soo dhawow wasaaradda maaliyadda ayaa la guddoonsiinayaa oo iyana dadaal juhdi garab istaag ugu tala gashay wasaaradda maaliyadda ayuu isbitaal Banadir u gartay shahaado qurux badan oo loogu talagalay in lagu gudbo UNFPA ha soo dhawaato UNFPA wow xaawo ayaa ku soo istaagtay
okay oo ka mid ah madax midwaynkoliga iskuullada cawo hambalyo UNFPA dadaalkiina kartidiina waxaa kula diyaara xildhibaanka da'da yar oo ugu da'da yar xildhibaanada عدنان علمي بوقرة وحن سودا وين يا مسؤولين تا باك أو ينالو قطع رجال شهادة قروح بدل قرآن شرفينه قرآن ويدينه باك أنت وجودة أسودا واتو واو عبد الله من حرس قطر دايركتور كيا يمين هيئته لحلال الحالي سواء يكتبوا مناسبات حمبلي وحن مركز سودا وين يا إيطاليا ديفلوبمنت كوربوريشن اوكي حسودا ودان شهاده شرف تقولون من دخل بيت ابي سفيان فهو امن شهاده بالامن ايطاليا ما انت لا دورهم ولا هو ما يا اجازك وحن سودا وين يا مستر حسن احمد برنامج مدعى هوغلينتا كاديكا دولة خوسة المجالات مقدشة حنبليو ومدح كاديكا والحنبليين
hotel 5 star nadaafadiisa ayay kala midnayeen waa lagu hambalyeynaa waana ku bogaadinaynaa waana tahniyadaynaynaa waana runtii shaqaalo daacada hambalyo inaad halkan gaarsiisaan nadaafadeeda iyo bilicdeeda hotel qaaliya oo 5 star la mida sidiisa oo kale ayaa looga shaqeeyay waad seexan kartaa waa fadhiisan kartaa waa ku cibaadaysan kartaa halka ka doonto gudaha isbitaalka gabadha iyo asxaabteeda ayaa la gaarsiiyey hambalyo leenahay hambalyo mar kale waxaan bogaadinaynaa inta guulaysatay iyo inta aan guulaysano shahaada la siino aanan kamid ah laakiin waa wada guulaysanay dhammaanteeda waa wada guulaysanay waxaa noo haray group photo in ay madaxdu noo gasho waxaa inoo raaci doonaa service qadab iyo quraac munaasabada darteed kubaarku free ama munoo madax banaaya oo wada cuni doono caafimaadna ku cuni doono balse sawirka ayaynu gelaynaa oo group photo ah oo aynu sawirka quruxda badan oo isbitaalka hooyada iyo dhallaanka munaasabada aan la soo istaago sirahay waa hambalyeynayna hambalyo shacabka oo dhacaya Maryam wuxuu tusayaa taageerayaal badan inay isbitaalka ku leedahay waan hambalyeynayna waan bogaadinayaa guusha maternity-ga isbitaalka department-ga shaqo badan ayaa laga qabtay hambalyaynu leenahay waxaan soo dhaweynayaa department kale oo pediatric-ga ama carruurta ah ayaan soo dhaweynayaa qaybta carruurta waxaa u gudoomayaa Dr. Khalbi ayaa u gudoomaya hambalyo waxaan markaan jeclahay oo Banadir Hospital main warehouse ayaa la guddoonsiinayaa warehouse-ka department-gooda ayaa la waxaa u guddoomaya Saciid Macalin Bashiir ayaa guddoomaya hambalyo ayaan leeyahay waxaan guddoonsiinayaa agaasimahayga wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cabdiraxmaan Yuusuf Xadaaqa 15 lay Bashiir waa ii diyaar hadduu agaasimihi wax ku guddoonsiiyo Mr. Cabdi Cali Xasan Sandheere madaxa nadaafadda isbitaal Banadir shacabka siiya shacabka runtii shaqada la qabteedahay guushiisu waa guushayna farxadiisu waa farxadayna wallaahi inaan ku siraayo waa mudanta siiya quruxdu waa qayb ka mid ah horumarka bulshada qofkii suulo geliya quruxda Sandheere wuxuu u dhigmaa 100 dowladda hoose uga fiican shaqada qabtay deegaan nadiifa haddaad aragto waa meel horumarta Sandheere guulayso waxaan soo dhaweynayaa wiilasha la taynayay Xasan Faarax Maxamuud oo isna loogu talagalay hambalyayaan leenahay hambalyo garashada
maamulka isbitaalka inuu nooleeyo inuu inkorgaleeyo inuu incentive ku sameeyo qaybaha nadaafadda waa muhiim. waaw waxaa ku doonaysa agaasimaha gabadha sanadka Dr. Shariif Maxamed Xasan oo guulaysatay nadaafadaaduna waa caddahay. hooyo Khadiijo Samata Diiriye iyaduna ما كان بيس ومن سبقليه هاي وفرفر يا هذا روح تهلقي بقى بعد عمو عمال يصير تهلقي بقى واحد كل حتى اسبتال بنادر الأخت هي بنادر بنادر عمر جماعة بلديين والرحمة والله الله يسلمك والحاج استتش وانا قاعد جالس عند العروضه والاستتش انا هذا كلام تقريبا انا اقوم من الجيران اقوم بوري انا عمر جاي والله هذا بالظاهر وما هو بس adiga waxay u dhameysay isaga oo amnigiisa la sugay ilaah baa facan oo fiican amnigiisa la sugay oo wanaagsan yahay oo